xamse cabdi bare ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa tuhunka ka saaray safarka la hadalhayo inuu ku tagayo Laascaanood wuxuuna xaqiijiyay bilowgii toddobaadkan inuu dhawaan gaarayo magaala madaxda gobolka Sool ee Laascaanood. Safarkiisa ayaa imanaya xilli socdaalkan ay si aad uga soo horjeedaan Somaliland iyo Puntland kuwa oo siyaasad ahaan u diidan in Khaatumo uu noqdo maamul miisaan leh oo dowladda dhexe xubin ka ah. diidmada maamuladan oo deegaanadaasi ku leh awood ciidan iyo mid sirdoon ayaa la sheegayaa inay ka dhalan karto saameyn amni taas oo halis ku noqon karta ra'iisul wasaare xamse cabdi bare maadaama Laascaanood iyo deegaanada ku xeeran ay sanadihii ugu dambeeyay wajahayeen marxalad colaadeed. dadka reer Laascaanood iyo deegaanada SSC ayaa go'aan cad ka qaatay kasii mid ahaanshaha Somaliland waxaana dagaal ay la galeen maamulkaasi ay kaga saareen inta badan deegaanadooda walow meelo badan oo deegaanada SSC ah uu ka arrimiyo maamulka Somaliland. haddana waxay bulshadaasi yagleeleen maamul cusub oo la magac baxay Khaatumo. inkastoo Khaatumo dowladda dhexe aanu ka helin meeqaamkii uu mudnaa haddana dowladda dhexe ayaa u aqoonsatay maamulku meel gaar ah balse booqashada xamse ayaa maamulka u noqon karta fursad muhiim ah oo kaalin ka qaadanaysa xoojinta xiriirka ay la leeyihiin dowladda dhexe. socdaalka xamse ayaa la filayaa inuu sidoo kale caddeeyo mowqifka dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan taageerada maamulkaasi iyo horumarinta gobolada SSC walow ay xusid mudan tahay in caqabado amni ay ku gadaaman yihiin deegaanada SSC. geesta kale Somaliland oo aan weli ka tanaasulin damaceedii ahaa inay gacanteeda ku soo celiso Laascaanood oo ay ka arriminaysay 15 sano ee ugu dambeysay ayaa ka hadashay safarka ra'iisul wasaare xamse waxayna ku goodisay in xamse uu ka qoomameyn doono safarka uu ku imaanayo Laascaanood. gudoomiyaha gobolka Sool ee Somaliland Axmed Faarax Ismaan oo warbaahinta la hadlay ayaa ra'iisul wasaare xamse ku eedeeyay inuu Laascaanood keenayo mashruuc horinayo colaadda Sool iyo Sanaag wuxuuna xusay inuu safarkan uga digayo ra'iisul wasaaraha oo sidoo kalena uu ku eedeeyay inuu qayb ka ahaa raggii horiyay dagaalkii Laascaanood ee Somaliland looga saaray magaaladaasi. dhanka kale Puntland ayaa iyana deegaanada Khaatumo u aragta inay qayb ka yihiin kuwa uu ka arrimiyo maamulkooda waxaana xoguhu ay sheegayaan in safarkan ay si aad uga caroodeen iyadoo la ogyahay heerka uu maanta joogo xiriirka dowladda dhexe iyo Puntland oo ah mid aad u liita. Puntland ayaa maamulkeeda kuraas ka siisa xildhibaano iyo wasiiro ka soo jeeda Khaatumo maadaama ay u aragto dhul ka tirsan goobaha ay maamusho waxaana dhowr jeer ay soo hortaagtay dadaallo Khaatumo loogu aqoonsan rabay maamul dhammaystiran halka ciidamada Puntland ay door muuqda ku lahaayeen dagaalkii Laascaanood looga saaray Somaliland iyagoo welina halkaasi ku leh quwad ciidan oo la taaban karo taas oo bidhaaminaysa halista uu ra'iisul wasaaraha kala kulmi karo safarkan. caqabadahan jira iyo diidmada labada maamul ee Khaatumo oo wadaagta la tahay waxay soo dadejin karaan culays amni oo saameyn ku yeesha wasiirka koobaad ee dalka xamse cabdi bare kaas oo aan weli dejin qorshe amni oo safarkiisa uu ku soo gudan karo. si kastaba maamulka SSC Khaatumo oo ah mid ay ka go'an tahay isku keenida Soomaalida koonfur iyo waqooyi iyo ka tashiga aayihiisa ayaa wada diyaar garow xoogan iyo qorshayaal lagu sugayo amniga ra'iisul wasaaraha. inkastoo maamulka uusan lahayn awood ciidan oo ka shaqeyn karta sugidda amniga xamse sabab la xiriira maamulka oo dhawaan gal ah iyo inaanu helin cid ka caawisa tababarada iyo qalabeynta ciidamo adag oo uu maamulkaasi yeesho. amniga safarka ra'iisul wasaaraha oo shaki la gelinayo ayay dadka qaar dib u gocanayaan falkii Oktoobar 15 1969 ka dhacay Laascaanood halkaas oo waqtigaasi lagu dilay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaake kaas oo horena dalka uga soo noqday ra'iisul wasaare waxaana dilkaasi oo ahaa mid qorsheysan fuliyay nin ka mid ah ilaaladiisii. inkastoo badankood ay lumiyeen haddana deegaanada SSC ayaa lafdhabar u ahaa qorshaha gooni u goosashada Somaliland waxaana tallaabadani ay u muuqataa mid dowladda dhexe ay uga hortagayso yoolka Somaliland oo muddooyinkii ugu dambeeyay sameynaysay dadaal xoogan dowladda uu Mareykanku ka mid yahay ku qancinaysay fikirkooda gooni isu taaga. si kastaba socdaalka xamse cabdi bare ee Laascaanood ayaa noqonaya mid dunida fariin u diraya kana dhignaan doona in Somaliland aanay si buuxda gacanta ugu hayn gobolada waqooyi ee Soomaaliya taas oo hakinaysa in la tixgeliyo codsigooda isu soo taraya ee aqoonsi doonka ah.